madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya kaga qayb galay munaasabad ballaaran oo jaaliyadda reer Soomaaliland ee ku nool dalkaasi ay ku xuseeyeen xuska maalinta qaran ee 18 May sidoo kalena ay ku soo dhaweynayeen wafdiga uu hogaaminayo madaxweynaha Soomaaliland oo maalmihii ugu dambeeyay ku sugnaa dalka Kenya munaasabadani oo ahayd mid si ballaaran loo soo agaasimay isla markaasina ay soo qaban qaabisay safaaradda Soomaaliland ee dalka Kenya ayaa waxa ka qayb galay madax kala duwan oo ka tirsan dawladda Kenya aqoon-yahano madax dhaqameed iyo dadweyne kala duwan oo ku labisan astaanta calanka ee Soomaaliland xafladan waxa lagu wada caweeyay calanka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo heesaha qaranka iyadoo si weyn loogu dabaaldegay xuska 34 guuradii ka soo wareegtay maalintii Soomaaliland ay la soo noqotay madax banaanideeda 18 May 1991 taasoo dib loogu dhigay si madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu gala qayb galo jaaliyadda reer Soomaaliland ee dalka Kenya ugu horeyn munaasabadda waxaa ka hadlay safiirka Soomaaliland ee dalka Kenya Ambassador Maxamed Axmed Barawani iyo safiir ku-xigeenka safaaraddaasi Ambassador Sharmaake Axmed Maxamed Geelle waxaad la socoteen safarkii madaxweynaha oo runtii guul aad iyo aad weyn ku soo dhamaaday oo dhammaan hawshii iyo barnaamijkii iyo shaqadii loo baahnaa ay dhammaan si guul ku soo dhamaatay dadka reer Soomaaliland oo dhan guul bay u tahay guushaana dadka reer Soomaaliland qof walba qayb uu ka yahay Soomaaliland dawladnimadeeda dadka ayaa dhisay bulshada ayaa dhisatay waa dawlad iyo bulsho isku wada socota dawladnimadu waxay u adeegtaa bulshada waxaan runtii halkan caawa aan ka sheegayaa in dawladnimada Soomaaliland ay tahay dawladnimo horumar ku soo kordhisay adduunka oo dhan waxay yiraahdeen madaxweynaha ma kulmi karo oo ma kulmi waxay yiraahdeen madaxweynuhu malaha munaasabadda furitaanka safaaradda Soomaaliland dhici mayso oo way dhacday waxay yiraahdeen malaha Soomaaliland kumanaan kale isku may makaraakiin iyo dhexdeeda oo isku yimaadeen malaha beesha caalamka Nairobi kulama dhaqan safaro kula garabsan waxay Soomaaliland waa laga yaabaa in la qabato laakiin iska wada qaar ka mid ah madaxdii ka qayb gashay munaasabadan aqoon-yahanadii madax dhaqameedkii iyo xubno ka mid ah jaaliyadda reer Soomaaliland ee ka qayb galay munaasabadan ayaa ka sheekeeyay Soomaaliland iyo guulaha ay gaadhay 34 sanadood ee ay jirtay sida nabadda doorashooyinka dimuqraadiyadda iyo horumarka kaabayaasha dhaqaalaha wasiirka ka tirsan xukuumadda Soomaaliland oo ay ka mid yihiin wasiirka madaxtooyada Khadar Xuseen Cabdi wasiirka isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda Jamaal Maxamed Jaamac wasiirka qorsheynta qaranka Kaltuun Sheekh Xasan oo halkaasi hadalka iska daba qaatay waxay ka warameen marxaladihii Soomaaliland ay soo martay halka ay taagan tahay iyo halka ay hiigsanayso mustaqbalka dhow waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa jaaliyadda reer Soomaaliland ee Kenya oo aan isleeyahay waa jaaliyadii wiigagan ugu dadaalka badnayd reer Soomaaliland waxaan jaaliyadda reer Kenya ee Soomaaliland waxa ay tustay sida jaaliyaduhu ay qayb weyn uga qaadan karaan kor u kaca waddankooda iyo ka shaqaynta siyaasadda iyo diblomaasiyadda waddankooda caawa waxaan leeyahay haddii inuunu jiro qof shaki ka qaba qotada iyo xeeldheerida diblomaasiyadda madaxweyne Cabdiraxmaan jawaabtiisii waa safarkan weeye jawaabtiisii waa caawa waa shaqada halkan ka dhacday weeye iskuulka tagayo ee aan soo rawaxo waxa nima jiray aabahayo xalayna la baxay waxa nima jiray subaxii aabahayo saaka la qaaday laakiin inantayda inankaygu aabahood lama qaado maanta xor bay ku nool yihiin taa dib loogu noqonayna waa taa miyaynu ku noqonnaa taa miyaynu ku noqonnaa waa sidaynu u goosanay
واسي سومالي لانو قاعدتك أنها runtii waa wax lagu farxo meeqaamka ay Soomaaliland maanta caalamka ku leedahay iyadoo wax badan u qabsoodeen marka la eego dhinaca nabadgelyada dhaqaalaha siyaasadda iyo isku duubnida ummadda Soomaaliland iyo sidoo kale xiriirka ay la leedahay beesha caalamka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro oo la hadlayay jaaliyadda reer Soomaaliland ee dalka Kenya ayaa ka sheekeeyay sooyaalka Soomaaliland ee muddadii ay jirtay nabadda ay ku naaloonayso ay kaga duwan tahay wadamo badan oo Afrika dimuqraadiyadda lagu soo doortay 6 madaxweyne iyo sidoo kale sida ay bulshadeedu u samaysay iskaashi dhaqaale oo aanay cidna waxba uga baahan aysan ayay go'aanka u qaateen inay gobonimadoodii ay geeyeen 60kii xamar kala soo noqdaan Soomaaliland maalinta laga bilaabo danaheeday ku mashquulsanayd dhismaheeday ku mashquulsanayd nabadeeday ku mashquulsanayd dimuqraadiyadeeda iyo doorashooyinkeeday ku mashquulsanayd sida la sheegay anuu xalay madaxweynihii lixaad 5 madaxweyne iga horeeyay waasle waddanka qura Afrika si nabada oo qoriisu dhiiba ay madaxweynayaashu isugu dhiibeen waxaanu kaga duwannahay dhammaan dalalka Afrika inaynaan mucaarad iyo muxaafid kala lahayn markii qarannimada Soomaaliland joogto waxaynu kala duwannahay markaynu tartamayno xukuumadda cusub waxaanu u sheegnay dunida inaanay Soomaaliland ka rabin deeq ay ka rabto inay iskaashadaan inay wax wada yeeshaan inay wax wada maalgashadaan inay horumarinta oo iyaguna macaash ugu jiro ay dalka gashadaan waxaanu qaban doonaa shilka maalgashiga Soomaaliland haddii Ilaahay ka dhigo shirka waxaa ka soo horeeyay professorka oo ii sheegay inuu bisha 8aad Soomaaliland keenayo 50 maalgashade oo dalka Kenya ka imanaya haddii Alla ka dhigo Soomaaliland waxay kaga duwan tahay Soomaalida iyo dalalka kale ee Afrikaba in iyadu nabadeeda samaysatay oo aan loo samaynin inaga AU inoomay samayn Maraykan inoomuu samayn imaka 6,000 oo dhalinyaro baan hubkii ka qaadnay oo maanta ku jira tababar mashaariicda inta la leegay dunidu lacag badan bay ku bixisaa laakiin anagu dunida lacag ma weydiisan madaxweynaha ayaa sidoo kale waxa uu si rasmi ah u shaaciyay uguna bushaareeyay jaaliyadda reer Soomaaliland ee dalka Kenya in madaxweynaha Kenya William Ruto ay ka wada hadleen isla markaasina dawladdiisu ay ogolaatay duulimaadyadii tooska ahaa ee u dhaxeeyay Hargeysa iyo Nairobi inay ku bushaareeyay jaaliyadda in dawladda Kenya imaka ogolaatay in la bilaabo duulimaadkii tooska ahaa ee u dhaxeeya Hargeysa iyo Nairobi waxaana ka mid ahay waxyaabaha aanu kala hadalay madaxweynaha waxyaabo badan oo surprising ah way soo socdaan ee Soomaalidu iyo hadhow yaabe madaxweynaha ayaa sidoo kale waxa uu fariimo u diray cid kasta oo liddi ku ah horumarka iyo guulaha waaweyn ee Soomaaliland ay ku tallaabsanayso Soomaaliland Soomaali ma nacba 60kii waxa uu geeyay Soomaali jacayl laakiin dawad iskaga soo noqotay Soomaaliya waxaan u sheegayaa oo dadka ku mashquulsan arrimaha Soomaaliland waqtigoodii ka lumin hawlihiina qabsada Soomaaliland idinkeedu kuma mashquulsana waxay ku mashquulsan tahay hawlaheedana way wadanaysaa hawlaheedana ma joojin kartaan kuwiina ka adkaada nabadiina ka adkaada midnimadiina ka adkaada maamul goboleedyadiina ka adkaada weliba waan idinku ducaynaynaa waa Idris Beershiya warbaahinta qaranka